Lambarka koowaad inaad gaadho halkii aad ku riyoonaysay. Lambarka labaad inaad hesho wixii aad u baahnayd eed ku riyoonaysay. Lambarka saddexaad inaad ka tallaabsato duruufaha iyo caqabadaha nolosha ee kugu gadaaman. Xarafka G go'aan inaad leedahay. Xarafka U fikradda si waayo-aragnimo leh. Ohda labaad u dulqaad badan tahay dhibka. Xarafka L leedahay hadaf iyo qorshe. Lahaansho nafeed yacni inaad naftaada leedahay. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu. Soo dhawaada saaxiibayaal mar kale muuqaal kale xiiso leh. ku soo dhawaada muuqaalkeena maanta. balse intayna muuqaalka gudagelin muuqaalka like saara. sidoo kale haddaad nagu cusub tahay subscribe channelka oo nagu soo biir. haddaad hore noola joogtayna waad ku mahadsan tahay. sina share gare. Waa maxay guusha naftu? Markaan isbarbar dhigno guusha iyo nafta waxaynu odhan karnaa waa laba eray oo isku tiirsan. Tusaale ahaan, guushu waa hadafkii ama yoolkii uu qofku lahaa isagoo u maraya waddo saxa. Naftuna waa ficilkii samayn lahaa guusha. Guusha waxaa lagu qeexaa habab kala duwan oo mid kastaaba tilmaamayo micnaha guusha. Haddaba aan isbarbar dhigno qeexitaano dhowr ah oo laga soo xigtay faylasufyo kala duwan. Mid ka mida mar wax laga weydiiyey wuxuu ku soo koobay saddexdan hab. Lambarka koowaad inaad gaadho halkii aad ku riyoonaysay. Lambarka labaad inaad hesho wixii aad u baahnayd eed ku riyoonaysay. Lambarka saddexaad inaad ka tallaabsato duruufaha iyo caqabadaha nolosha ee kugu gadaaman. Haddaba ereyga guul waxaan ku micnayn karnaa inagoo eegayna xaraf walba iyo micnihiisa. Xarafka G go'aan inaad leedahay. Xarafka U fikradda si waayo-aragnimo leh. Ohda labaad u dulqaad badan tahay dhibka. Xarafka L leedahay hadaf iyo qorshe. Lahaansho nafeed yacni inaad naftaada leedahay. Haddaba waxaad ogaataa mar kasta oo dhib badan iyo mashaqo kugu dhacdo, mar kasta oo cidhiidhi dartii aad neefsan kari weydo, waa markay kugu dhowdahay guusha iyo farajka iyo fudaydku. waayo Ilaahay ayaa qur-aanka inoogu sheegay subxaanahu watacaala oo inagu leh inna macal cusri yusra, oo macnaheedu tahay dhib kasta waxaa ka dambeeya fudayd iyo faraj. Haddaba adigu samir lahow oo Allana isku xidh, Allana taladaada u dhiibo. ugu dambeynta Allah ayaa subxaanahu watacaala ku guuleynaya. daawade waad ku mahadsan tahay haddii aad soo gaadhay ilaa dhammaadka muuqaalka like saar. sidoo kale haddaad nagu cusub tahay subscribe channelka oo nagu soo biir. haddaad hore noola joogtayna waad ku mahadsan tahay. muuqaalkana sii share garee. wassalaamu calaykum.